magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya waxa ka socoto munaasabada caleemasaarka madaxweynaha maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya Cabduqaadir Cali Firdhiye halkaas dhawaan waxa gaaray mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha ee Soomaaliya Xamza Cabdi Barre iyo sidoo kale wasiiro xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya hadaba kulankaasi caleemasaarka dabcan waxa ka qayb galin ama aan aadin halkaas guud ahaanba madaxda Hirshabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeed oo dabcan diiday in markaa ay ka qayb galaan shirka caleemasaarka madaxweynaha maamulka ee Waqooyi Bari Soomaaliya Cabduqaadir Cali Firdhiye waxa dabcan xirkiis ku sii shareeray xiisada u dhaxayso madaxda koonfur galbeed iyo sidoo kale Waqooyi Bari xilli markaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Laftagareen oo si cad u sheegay inuu san aadi doonin caleemasaarka madaxweynaha maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya Cabduqaadir Cali Firdhiye sabab la xiriiro xilli markaa dagaal aad u culus oo halkaas ka dhacay oo u dhaxeeyay markaa dadka reer Khaatuma iyo sidoo kale Somaliland iyadoo isla markaana halkaasi lagu baabiyay dadka ka soo jeeda koonfur galbeed ee Soomaaliya taas bedelkeed madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Laftagareen ayaa diiday in marka uu tago sidoo kale uu ka qayb galo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka Urdunka ah ee Waqooyi Bari ee Soomaaliya Cabduqaadir Cali Firdhiye hadaba sidaad u aragtaa diidmada madaxdan Hirshabeelle iyo koonfur galbeed ay diideen caleemasaarka inay ka qayb galaan marka madaxweynaha cusub ee Waqooyi Bari ee Soomaaliya Cabduqaadir Cali Firdhiye qaybta soo saartida nagu soo biir kamid noqo saaxiibada ku xiran